السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحويني هوري دولة صوماليا محمد عبد الله فرماجو أيا جوردو ورقد وصوصار وحقات ورري حسن شيخ محمود مدحوينها دولة فدرالك صوماليا وحونا قوس كموجي نظام كشركة مداش وضطشيق قرن أو وشيغي إن لو بدلي مدى الحزبي إسلامر كان لدونيو إن لقو بربريو دالك وحالك نذن كل وذاقيا وركان كسو بحي مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله محمد فرماجو سو دواده muuqaalka si gudbiya la gareeyo shargareeyo oo la sii wadaaga asxaabtina madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa soo saaray warqad uu ku faahfaahinayo sida uu arko shirka madasha wada tashiga qaran ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya shalay ka furmay waxa uu sheegay in shirkan uu yahay shir loo bedelay madal siyaasadeed oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in dalka uu ku burburiyo waxa uu ka digay si socoshada arintan wuxuuna yiri waxaan ka digayaa in madaxda maamulada ka jira dalka sida Koonfur Galbeed Hirshabelle Galmudug gudoomiyaha gobolka Banaadir ACC qaatumo in aysan ku lug yeelan waxa socda ee ah burburinta dalka wuxuuna sheegay in shirka loo bedelay madal xisbi oo Xasan Sheekh Maxamuud ku duulo farmaajo ayaa rajaxumo iyo qoys ka muujiyay sida ay wax u socdaan iyo nidaamka dalka waqtigan iyo arrimaha siyaasadda oo heer xasaasi ah amaraya waxa uu tilmaamay in dhankiisa uu soo jeedinayo talo ah in shirka aan laga dhigin shir arrimaha looga hadlayo ay noqonayaan kuwa madal siyaasadeed oo hal xisbi ah Xasan Sheekh Maxamuudna danihiisa lagu fuliyo qoraalkan ayuu soo saaray gorreed wuxuuna yiri waxaan talo iyo tusaale ku soo jeedinayaa in dalka aan la gelin jahwareer kale oo siyaasadeed shacabka aan la jahwareerin waxaan sidoo kale ka digayaa in madasha aan loo bedelin meel xisbi gaar ah oo Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayo waxaan sidoo kale ugu baaqayaa ay warkiisa ku daray guud ahaan madaxda ka qayb galaysa in ay ilaaliyaan sharafkooda nidaamkooda sumcadooda oo aysan ku milmin waxa ka socda dalka gaar ahaan tan villa Soomaaliya ay wado hadaba waxa xilligan marka la eego dalka uu ku jira jahwareer dhinaca siyaasadda oo xisbiyada qaar iyo sidoo kale siyaasiyiinta ayaa ka soo horjeeda nidaamka Maxamed waa nidaamka Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka ku wado waxayna rajaxumo ka muujinayaan shirkan loo bedelay in looga hadlo arrimo xisbi loogu magac daray cadaaladda iyo wadajirka su'aasha isweydiinta madan waxay tahay oo adigan aan ku weydiinayaa xisbigan loo bixiyay cadaaladda iyo wadajirka ama wadajirka ma yahay xisbi magacaasi u qalma oo tiimka Xasan Sheekh Maxamuud oo aad ogtihiin waxa dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka tabanayaan 3 sano iyo dheeraadka ah mihir gelin karaan cadaalad iyo wadajir bulshada Soomaaliyeed sidee soo aragtaa hadalkan ka soo baxay war-saxaafadeedka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haddii uu ku soo gaaro muuqaalkeena si gudbi